ismari waaga ka taagan doorashada ay tahay in lagu soo qabto magaalada Garbaharre ayaa noqotay caqabada ugu weyn ee xilliga uu wajahayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Garbaharre oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ayaa waxa ay yeelan 16 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashada oo tahay Jubbaland. Maamulka gobolka Gedo oo gadaal ay ka riixayso Villa Soomaaliya ayaa si buuxda isugu hortaagay inay magaaladaasi yimaadaan. guddiga oo Ra'iisul Wasaaruhu u magacaabay in ay soo qiimeeyaan xaaladda xarunta gobolka Gedo ee Garbaharre. xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo geed gaaban u fulay sidii guddigaasi u tagi lahaayeen magaalada Garbaharre ayaa haatan u muuqda mid quuska muujinaya haddii aanu albaab kala furmin. ilowanaadyo ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble khamiistii safiirka Mareykanka ee dalka u jooga uu sheegay in ay caqabad ku haysato doorashada Garbaharre oo aan halkaasi lagu qaban karin. madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale safiirka ku wargeliyay in aan magaaladaasi lagu qaban karin wax doorasho ah dhacdamaa waqtigii lagu heshiiyay doorashada golahaasi lagu soo gabagabeeyo ay ku egtaa 15 bisha. Roble iyo Axmed Madoobe ayaa isku raacay in doorashada laga wareejiyo Garbaharre oo la geeyo Kismaayo, balse ma cadda xilliga ay ku dhawaaqi doonaan. macda tallaabadan xigta ee Mareykanka uu qaadi doono inkastoo uu dhowaan sheegay in ay xayiraado ku soo rogayaan kuwa caqabada ku ah raaca doorashada dalka. si kastaba ha ahaatee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa mar kale qarka u saaray in dib u dhac ku yimaado oo ay dhaafto 15 Maarso.